السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan. Iiraan oo sheegtay inay qarramsatay askar cusub oo Mareykan ah. Mareykanka oo wali afka kala taagaya oo aan wax wara laga hayn. Haddaba askarta xagee lagu qarramsaday. Diyaarad nooceedu yahay kuwa dagaalka F-15 noocyada Mareykanku ku dhaarto ayaa iyaduna la burburiyay. xaalka waa sidee wararkii ugu dambeeyay dagaalka ayaan idiin hayaa. Waxa soo kale aan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha Iiraan oo sheegay in ay dagaalka kaga adkaadeen Mareykanka haddana uu u janjeersaday uu doonayo in wada hadalkii lagu laabto. Haddaba wada xaajoodyo ku saabsan 10 maalmood oo xabad joojina oo laga shaqeynayo. Inuu ku bilaabay warar cusub oo soo kordhay askar cusub oo Mareykan oo la qarramsaday diyaarad la burburiyay iyo xaalka bariga dhexe halka uu marayo. Haddaba warbixinta ugu horeysa barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa telefishinka Ruushka ee la yiraahdo RT ayaa qoray ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay sheegeen goor dhaweyd in markaa askar cusub oo Mareykan la dilay sidoo kalena la burburiyay diyaarad nooceedu yahay F-15 waxaana arintani ay ka dhacaysaa wadanka Urdun ayay ka dhacday. sidoo kale waxaa la duqeeyay deegaanka la yiraahdo Amazon oo ku yaala dhankaasi iyo Bahrain. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan Iiraan waxay ku dhawaaqday inay dishay askar cusub oo Mareykan ah. ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay maantay inay dhowr askari oo Mareykan ah ku dileen weerar ay ka fuliyeen deegaanka la yiraahdo Rukban ee dalkaasi Urdun. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa war saxaafadeed ay soo saareen goordhow waxay ku sheegeen inay bartilmaameedsadeen xero hooy u ah ciidankaasi oo ay isticmaalayeen ciidamada Mareykanka. waxaana la sheegay xeradaasu inay ku taalo deegaanka la yiraahdo Rukban oo markaa ka tirsan wadanka Urdun. dowladda Mareykanka wali ma aysan ka jawaabin sheegashada ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saareen ciidamada Mareykanka 17kii bishan weeraro ay Iiraan ku qaaday gantaalo ridada dhaadheer iyo waliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa lagu dilay askar kale oo ciidamada Mareykanka ah. waaye sheekadu markaa way kulushahay. Iiraan waxay leedahay maantay waxaynu mar kale dubanay askar Mareykan qarramsanay leey meel hooy u ah oo ay deganaayeen ayaynu la helnay baash nagtaa ka saaran diyaarad kale oo F-15 oo diyaaradaha maaragtay wax bamgareeya oo Mareykanku uu leeyahay iyaduna meesha taala ayaan iyaduna nagta ka saarnay leey. marka Mareykanka ilaa hadda war laga ma hayo afkii baa juqda gabay kullay way beenin doonaan ama way hadli doonaan ama wax yara dhintay dhihi doonaan waxay dhihi doonaan laba yaqaano laakiin warkanu waa cusub yahayo waxa leeyahay askarta ayaa la qarramsaday oo meesha lagu qarramsaday. waaye sheekadaas marka halkaas ay joogtaa. warbixin kale oo isla qasaaraha ciidamada Mareykanka ayaa waxa baahiyay wasaaradda dagaalka ama wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee yiraahdo Pentagonka. haddaba wargeyska la yiraahdo Asharqul Awsad ayaa wuxuu sheegay in la sheegay inay dhaawacmeen 100 ka mid ah ciidamada Mareykanka toddobaadyadii ugu dambeeyay. Trumpna waxa uu wacd ku maray Iiraan inay ka shallaayi doonto falka ay sameeyeen. haddaba wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxay sheegtay in 100 ka mid ah ciidanka militariga Mareykanka ay dhaawacmeen toddobaadyadii la soo dhaafay. waxaana la sheegay qaar ka mid ah ciidankaasu inay dib u bilaabeen oo hawlahoodii ku noqdeen markii dhaawacu uu ahaa mid fudud. haddaba dhanka kale waxaa la sheegay wasaaradda gaashaandhiggu ay sheegaysaa in la dilay dagaalka Iiraan intuu socday 17 ka mid ah ciidamada Mareykanka. waxaana la sheegay in arintani ay ugu dambeysay markii askari la waayay la helay qayb ka mid ah jirkiisa kaasoo la sheegay in xisaabta uu ka dhigay 17. way
warkan oo wasaaradda gaashaandhigga ay soo saartay saacada ka hor isagu wuxuu joogaa askarigii la helay iyo kuwii ciraaq halkii askari ciraaq lagu dilay iyo kuwii urdun waxaa joogaa sheekada maanta dhacaysa oo ciidanka ilaalada kacaanka ay leeyihiin diyaaradan qararamsanay askaraan qararamsanay warkoodii lagama hayo nimanka waaya sheekadu marka halkaasay joogtaa wararka kale ee soo kordhay iyana waxaa ka mid ah inay socdaan markan dadaalo ku saabsan xabad joojin marka ragga khubarada waxay leeyihiin Trump wuxuusan raalli ka ahayn dowladahan ma wadaan macnaha odaga markii la kululeeyay uu arka xaaladdu inay cirka gashay oo maalin walba askar la qararamsanayo ayaa hadda waxaa soo baxay warar sheegaya 10 beri oo xabad joojin ah si wada hadaladii iyo wixii iyo loo furo haddaba marka sheekada waa la isku fahmay haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ku saabsan wada hadaladan la sheegayo haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay wakaalada la yiraahdo Axios ee wararka Mareykanka ayaa waxay baahisay in laga shaqeynayo xabad joojin 10 maalmood ah taasoo dhex maraysa Washington iyo Tehran haddaba waxaana sidoo kale laga shaqeynayaa arinta ku saabsan Hormuz iyo sida loo xalinayo sheekadeeda haddaba wargeyskan ama wakaaladan Axios la leeyahay ayaa talaadada maanta ah waxay sheegtay iyadoo soo xiganaysa warbixino muhiim ah in dowladaha Qatar, Masar, Pakistan iyo kuwa kale oo gobolka ah la sheegay inay Mareykanka iyo Iran ku cadaadinayaan in bal xabad joojin 10 maalmood la gaaro si xal loogu helo xiisada taagan way marka 10 beri xabad joojina ayaa marka waxaa wadaa lagu leeyahay Pakistan iyo Masar iyo dowladahan iyo Qatar iyo ayaa wadaan marka dowlado kale oo gobolka sida Turkiga iyo Sacuudiga iyo awalba shaqada ku shaqeynayeen ay hawsha wadaan marka sheekadan marka yaa ka dambeeya daaha gadaashiisa qofka taagan oo arintan in la xalliyo oo xabad joojinta la galo markii la kuleeyaa way macalinka weyn asaga hawsha wad Iran marka waa fahamtay waxa kaliya ee Trump fahmay iyo kooxdiisa Iran ka jirta isla markii sheekadan ay soo baxday madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa war soo saaray haddaba marka aan idin tuso Pezeshkian warka uu soo saaray oo arrimahan wada hadallada ku saabsan madaxweynaha Iran ayaa wuxuu sheegay markii guuldarro ay soo gaartay cadawgu in marka uu ku fashilmay ujeedooyinkiisii dagaalka ayaa wuxuu la yimid ayuu leeyahay inuu u weecdo dhanka wada hadalka haddaba cadawgu wuxuu nagu soo rogay ayuu leeyahay dagaal oo dhammaystiran oo ujeedadiisu tahay in la abuuro cadaadis gudaha ah iyo burbur bulsho haddaba guusha aan ka gaarnay dagaalka waxay markaa ku xiran tahay oo ay muujinaysaa midnimada iyo isku xirnaanta gudaha dadkeena madaxweynaha Iran wuxuu sheegay in ku guuldaraysiga cadawga uu ku guuldaraystay inuu gaari waayay ujeedooyinkiisii dagaalka ayaa horseeday ayuu leeyahay inuu hadda u weecdo dhanka wada xaajoodka iyo wada hadalka cadawgu wuxuu doonayaa inuu burburiyo dalkeena isagoo bartilmaameedsaday kaabayaasheena dhaqaalaha intii lagu guda jiray kulamadeenii hore hogaamiyaha sare wuxuu ku nuuxnuuxsaday in markaa ay yihiin dad isku xiran Iiraaniyiinta xiriirka aniga igala dhaxeeya hogaamiyaha Iran Ayatullaahiga wuxuu yiri dhammaan go'aanadan dawladdu ay ku shaqeyso waxay ku salaysan yihiin tilmaamaha uu bixiyo Ayatullaahiga guulihii aan ka gaarnay wada hadallada waxay markaa muujinayaan fashilka Mareykanka qaar ka mid ah hadallada gudaha ayaa hoos waxay u dhigeen guulaha arrimaha taagan haddaba arikan hadda wuxuu sheegay wada xaajoodiyada hadda la hadalhayo in uu isagu doonayo cadawga sida uu yiri inuu markaa wada xaajoodka u jihaysto way marka Mas'ud Pezeshkian hadalkiisa dhowr nuqdo ayaa ku jirta oo muhiim ah markaan aad u feerinay marka dhowrka nuqdo waxa kamid ah kow wada xaajoodiyada hadda socda inaysan Iran dalban ayuu cadeynaya uu leeyahay cadawga ayaa wuxuu u weecday markuu dagaalkeena ku jabay oo dhagaha ka garaacnay wada xaajoodu aaday kow way
wadaxaajoodka marka sidii lagu aamini karo tii horaaba aba meesha taala moogtay marka wadaxaajoodka isaga aaduu leeyahay midda kale maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta qaar kuwa reer galbeedka kuwa Israa'iil waxay hadalhayeen in khilaaf uu ka dhex jiro madaxda Iiraan madaxweynaha iyo groupkiisa iyo ayatullaahiga iyo kooxdiisa saasay u kala saarayeen ninkan marka si clear u cadeeyay wuxuu dhahay awaamiirta dawladda ku shaqeyso waa tilmaamaha ayatullaahi al-murshid al-a'la al-murshid huwa ayatullaahi tilmaamihiisa ku shaqeynaa wiil kulamadeennu iyo wada xiriirkeennuna 100% waay tilmaamaha dawladda ku shaqeysana waa tilmaamaha ayatullaahi annagu maxaan ahay dad adeegayaalana ayatullaahi ninka ugu sareeyo wadanka marka sheekada meelaha la wadooda marka waxa ka jira malowleey marka sheekadaas iyaduna halkaas ay maraysaa hadaba marka maxaa kale cusub dhanka marinbiyoodka Hormuz waxa la sheegayaa saacadii la soo dhaafay dhowr markab inay gantaala ku dhaceen qaar ay gubteen kadibna wax dhaqdhaqaaq oo meesha ka jira ma jiraan Hormuz al-Katinatu way katinada ugu xiran ay qufula u saaran Iiraan American wuxuu rabaa sabay habeenkii tobnaada weeraray kana weeraray habeenkii sagaalaada weeraray soo weerar adiga laakiin wadadan ma furi kartaa tabar ma haysaa ma jirto xaqiiqadu marka waa taas ujeedada dagaalka loo bilaabay sidiisaba horena waa idin kugu sheegay American inuu xoog ku furo Hormuz u rabay marka sheekada way u hagaagi weys hadaba marka barnaamijkeennii labaad inta ayaynu ku soo gabagabeynayna la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka waan hubaa inaad ka hesheen macluumaadkii wararkii barnaamijkeygii koobaad aanu ku soo gudbinay inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo